اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal marka u horeysa iyo mar walba ilaahay baa mahad iska leh. allah subxaanahu wa tacaala waxaynu ku dhaqannahay oo ku noolnahay waa nicmadiisa. ilaahay nicmadiisa aynu ku dhaqannahay. wa asbaga calaykum nicamahu daahiratan wa baatina wamaa bikum min nicmatin فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عليه الصلاة والسلام أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. marka waxaynu ku dhaqannahay dal iyo dibad miyi magaalo meelaynu joognaba waa ilaahay nicmadiisa. sidaa awgeed waxaa ina ku waajiba mar walba in qalbigeenna iyo carabkeenna aanay ka bixin mahadnaqa ilaahay. alxamdu lilaah ereygaas inuu carabkeenna ku bato way fiican tahay. ilaahay wuxuu ku ammaanay nebiyullaahi nuux innahu kaana cabdan shakuura. wuxuu ahaa addoon mahadnaq badan baa ilaahay yidhi. marka in carabkeenna iyo lisaankeenna iyo qalbigeenna hadiya gooraa leh mahadnaqa ilaahay inaynu badinno alxamdu lilaah alxamdu lilaah oo aynan isku hadlayn aqoonteenna awooddeenna maalkeenna caafimaadkeenna iyo nolosheenna inaynan isku hadlayn ee qofku ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku dhaqdhaqaaqayo ku nool yahay nicmadiisa oo aanu isku filnayn. maxaad u malaynaysaa meesha nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam uu galabtii iyo aroortii odhan jiray yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiith aslix lii sha'nii kullah walaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn. ilaahay buu u tawasulayaa biasmaa'ihi alxusna. markaasuu wuxuu leeyahay raxmaddaada baan ilaahu ku weydiisanayaa. iskuma filni kaama maarmi karo. isha intii la isku qabto hal mar ilbiriqsi waxa lagu cabiro waxa ugu yar weeyaan. kaa maarmi kari maayo ilaahayow marna kaama maarmi karo. marka inaynaan walaalayaal isku hadlayn waxa aynu maxaanku idhaahdaa ilaahay ina siiyey oo aynu haysanno laakiin ilaahay isku hadlayno. waxaan waa iska kaalmo laakiin axadkii ku siiyey marka aad garatid oo qalbigaaga uu ku weynaado waxaa ka dhalanaya ilaahay inaad jeclaato. caafimaadkan xagguu ka yimi, maalkan xagguu ka yimi, aqoontani xaggay ka timi, waxaan oo dhan bal xagguu ka yimi. mid kasta dib u raac min allah min allah min allah min allah. waxay taasi keenaysaa ilaahay inaad jeclaato. ilaahay inaad jeclaato. maanta haddii qof 1,000 shilin ku siiyo berina uu 1,000 shilin ku siiyo markaa is aragtaan buu 1,000 shilin ku siiyo. haddii loo dadka Nairobi ay ugu jeceshay aw jaamac baan ugu jecelahay oo maxaa ku jeclaatay war caadi ma ninkaas indhaha haddaad is saartaan lacag buu ku dhiibayaa. dee waxaa ku jeclaatay waxa uu ku siinaya soo ma fa kayfa axadka laylan wa nahaaran nicmadiisu kugu socoto maxaad u malaynaysaa laylan wa nahaaran. wax kale iska daa bal neefta aasanka ka qaadanayso oksijiinta bilaash baa ku qaadanaysaa. dadku markay bukoodaan dhakhtarrada la dhigo oksijiin u baahdaan waa garanaysaan sida xaaladda u adkaanayso. waa dhoweyd oday baa kaadidu qabatay dabeetana dhakhtar baa la dhigay. odaygii waxaa la yidhi borstayt baa ku haya qanjidhkan qofku markuu 50 ba dhaafo wuu dareemaa inta badan qanjirkaasi. dabeetana waxaa la yidhi waa in qanjirka lagaa saaraa. lacag baa la bixiyey qanjirkii baa laga saaray. maalintii dambe dhakhtarrada weydinka arkay oo aroortii markay cusbitalka soo galaan dadka jiifa bukaanka ayuu dhakhtarku kormeeraa. qof waliba uu eegaa xaalkiisa xaalis sidee ahaa caynkan kadib wuxuu fadhiistaa qolkii uu fadhiisan jiray
odaygiibuu marka uu qalay buu ku soo beegmay markaasuu iska warran buu ku yidhi sidee tahay odaygii markaasuu ilma indhihiisa ka soo daadatay waa ooyey dhakhtarkii wuxuu adeer maxaa la ooyeysaa adoo tacbaansan oo kaar badani ku hayo ayaa lagu keenay waa lagu dadaalay operation fiican baa ilaahay naga ka dhigayo waa lagu guulaystay maasha allah si wacan baad imanka kaadidii kaaga imanaysaa leesh maxaad u ooyeysaa maqaalad cajiib ah buu ku jawaabay odayga wuxuu yidhi maalintaan dhashay oo dunida imi ilaa maalintii dhakhtarkan la i keenay intaa waa kaadinaya bilaash baana ku kaadinaya wax lacaga ilaahay igama qaadin hal maalin oo aan idiin baahday oo kaadidii i qabatay baa tidhaahdeen intaas oo lacaga keena hal maalin baa idiin baahdo oo kaadidii i qabatay 27 sano baan caadi bilaash lacag la'aan ku kaadinayay maalintaa ay kaadidu i qabatay baa tidhaahdeen intaas oo lacaga keena meeshu wax ka eegayso ma aragtay waxa aynu haysanno ilaahay ina siiyey waa xusuusin bay iga tahay naftaydana waa u sheegayaa idinkana waa idin xusuusinaya nicmadaas ilaahay ina siiyey fara badan qof waliba waxaad haysato cid badan oo aan haysan baa jirta marka inaan ilaahay u mahadnaqno waa is xusuusinaynaa intaa bacdigeed mawduuca waxaynu u doorannay dhacdo weyn oo dhacday taariikhda islaamka oo dhacdadii u horeysay islaamka ahayd midda mid la mid oo dhacda xilligii xabiibku noolaa calayhi salaatu wasalaam dhacdadaasi nin saxaabiyay ka dhacday waxaynu markaa qiimaynaynaa intaa inagu waa dembaabaynaa qofku waa dembaabi karaa isagoo sheekha isagoo mucallina isagoo mas-uula isagoo dhallinyaro ah isagoo waayeela waa dembaabaynaa habeen iyo maalin oo naf iyo shaytaan baa inagu xidhiidha waqtigan iminka la joogana dunuubtu waa iska badanta oo macaasidu waa badanta oo wixii ilaahay lagaga fogaanaya baa kolba soo kordhaya oo badanaya waa duni waalan oo suwixii waageedu bariyaba wax kaa cajabiyo baad arki sida awgeed in dunuubta qofku marka ay ka dhacdo inuu soo noqdo dunuubtaasi ha noqoto mid waaweyn ama ha noqoto mid yar yar dembiyada ilaahay bani aadamka uu ka galo 3 dembi baa ugu weyn sida nusuusta shariicadu sheegtay dembiga koowaad ee ugu weyn waa maxay yaa ka jawaabay shirkiga ugu weyn afsax allahu lisaanak maxaa ku xiga dilka naf xaq darro lagu dilo maxaa ku xiga zinada ku xigta في سورة الفرقان بقى إلهي كشيء والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق محاكو حقه ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما سدح ذا الدنبي إلهي لقال هو وين وقال لمو يدي الحق دراءه يزنو بقى هو وين ما قد دنبي نعاو كشيء كينا إنه ودنبي ننقر سدي كدعي نحاسة دنبي كدعي أو زناء شريعتنا ميل هذاك بيدكتي تصالح أن بان سحابي كان أصو قادني سيدا أنتو دنبي أقول دعي إلهي أنتو أقول صو نقضي يهيرك أبالكيس أقاري يا رسولك كشيكي صلى الله عليه وسلم ننكاسي وماعز ننك الله يراهضو صحابي ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماعز وحلا يراهضا ريباني تميمنا والله قشيغا إنو أها علماء كتبت تاريخ دا قرطا غير أسلمين والله قشيغا أسلمي باس اللو بدنيه إنو أها رسولك صلى الله عليه وسلم غير كودا ورقد بو قري وباقيو إني إسلام نماذا يدين تصو قلان إلى هنا صوب وقدقي أوي صو مسلمين وحوها ننكي وقوه الرئيي يدقح لقد له شريعة إسلام كقده هذا وانتو قور حلال صومري زينيستي دبديدنا أيها ماعز بن مالك سنة كدعدا داسي دعدي طلوا قورمة تاريخ يهنادو وقت قوان وضبط آد ومشيغان لكن وحال الشيغا waxaa jirtay qof dumar oo ka dambaysay oo la oran jiray imra'atul ghamidiyya nusuustu ku sheegtay gabadhaas waxa la yiraahdaa sanadkii 9aad ama sanadkii 9aad aakhirkiisii ama wax yar ka hor ayaa gabadha la rajmiyay iyaduna waa ka horeysay waa gabadhii rasuulka u timi sallallahu alayhi wa sallam
iyadoo uur leh salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ay rasuulka ka codsatay in uu rajmiyo salawaatullaahi wasalaamu calayh waa ay tiri ma sidii aad maacis u celisay baa doonaysa anna inaad ii celiso oo dabeetana uu yidhi balato uurka soo dhig dabeetana ay umushay oo ilmihii ay keentay oo rasuulku bal soo nuuji ilmaha oo dabeetana markuu naaskii jaqayoo dee 2 jir meelaha u yahay ay keentay subaxii dambe jab kimis ah ama jab jabaati ah ay soo qaaday oo ay u dhiibtay oo rasuulka ilaahay aniga saaka wiiga maarmaayo waka halka ku ciyaarayo jabaatigiisa iska cunayo haday lay xadka layga oofiyo maanta ii baahan maayo ee xadka halayga oofiyo fatahirni ya rasuul allah itahir rasuulka ilaahay dabeetana marihii lagu adkeeyay dhagaxiisaas rajmiga ah loogu sameeyay intaasoo dunuuba inaga ina ka dhacaysa haddana waqtiga maanta aynu joogno dad badan oo ina ka mid yihi dunuubta ka dhacaysa waxba lama aha waaba waxa dhacday xajka ayaa la xajiyay umradii oo la tawaafayo kacbada ayaa niman Soomaaliyo wada socda waxay arkeen dadkan eeshiyaanku wadadeen ka qalbi jilicsan oo hin badan inta badan niman eeshiyaan oo kacbadii maradeedii haysto oo aad u ooyayo ilaahay toobad iyo istighfaar weydiisanay nimankii bay isweydiiyeen marka Soomaalida ahaa ee wada socday ma 2 ama 3 nin bay ahaayeen qiyaastii bal nimanka niyahow bal siday u haystaan kacbada maradeeda oo u ooyayaan oo ilaahay dambi dhaaf u weydiisanayaan eeg inaga maxaa ina helay wax dareenaba malihiina waa sidee kii la socday baa yiri war ma dambigay galeen baad ogtay aduu maxaad gashay yani waxay tusinaysaa xogaa qalbi adeegeena bay tusinaysaa qalbi adeegeena inta waa dambaabaynaa qofku inuu ogaado dambigu ilaa saxaabadii waa dhacay heerarkiisa kala duwan ilaa inta dunida la joogana uu dhacaya qof nooc kasto bulshada kamidu ka dhici kara laakiin ha dhimanin oo godka ha gelin adoo dambiile ah in alla u toobad keent kullu ibn aadam khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun ina aadan oo dhan wuu gafaya laakiin inta gaftaa waxa uu khayr badan kuwa soo noqoshada badan marka gabadhaasay ahayd ninkan saxaabiga maacis ayaan bal qisadiisa rabaa inaan yara dhex galo si aynu insha Allah taala si fiican aad u dareenno iyo wixii bal aynu oran karayno nabiga masaajidka dhex fadhiya alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii bartankooda fadhiya ayuu u soo galay ninkan saxaabiga ah dabeetana saxaabadu ay rasuulka dhageysanayaanoo uu la hadlaayo xagga muuqaalka nin gaaban buu ahaa maacis markay taariikhda kutubta siirada ka waramayso wuxuu ahaa rajulun qasiir nin gaaban buu ahaa uu soo galay oo aan itaal weyneyn nin lixaad le ma ahayn in yaro gaaban oo xagga itaalka nisir buu ahaa uu soo galay markuu u soo galay rasuulka u yimi salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuu soo taagay 4 jeer buu rasuulku kala duwan intuu u yimi rasuulka ilaahayow zanaytu fatahirni waa zinaystaye idaahiri oo inadiifi يعني دنبي وين وي أشرف الخلق هرتي سلقا قرنا صلوات الله وسلامه عليه ومساجد لحدي وتاجنيه يا رسول الله قد ظلمت نفسي وزنيت فطهرني نفت إذا وادلمي وازنيستي يطهر رسولك إلهي زندي ودنبي وين وعظيمة وجريمة وين وذنوبة إنسان قالوا عقوبات وين وأبار له وعذر له وبلايا له بكدعة وحب أظن إنسان كسهاشني نبينا صلوات الله وسلامه عليه أمدي سآد بوجدك وعكم إذا حديثة صحيحة يا أمة محمد يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته حديث كبخاري مسلم صوصارين أمدي النبي محمدي إلهي بان كدارتي متشيرو أحد كغا قيرة بدن إلهي سبحانه وتعالى سيدو أغا قيروضو
إن أدون كيسو زينيستو أما أدون تيسو زينيستو سيدو إلهي وقيروضو سن بالعادي ما هب النبي يقول صلوات الله عليه إن بعادي ما سو وقيروضو أدون نرجو كم من المسلمين تا أما قفدوا مرة مسلمات كم يدو زينيسته إلهي سيدو وقيروضو وحلم إذا مجرو النبي يقول عليه الصلاة والسلام رسولك يسقو ساو قد جاي أي هذا ننكاس أرنتاسي كذا عادي ولا وزينيستي طاهر رسولك إلهي صلوات الله وسلام عليه يعني هو حويان زند ودم بأذك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيات لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وضد يقال الإسرائيلي زاني هجورسو ثانية هجورسو ودم بوين أو شرائع دي إلهي سودة شيء أو دن حرام لماذا زندو أي حرام تهي أي سوافقين هل شرعي هل كتاب إلهي سودة شيء كتبتي يرسوشي وصادري لغما أرق أو ضع وكلا بايدي واسكوافقين صحيح البخاري وحاكو سوغان قصة يابله أياكو سوغان أو عمر بن ميمون ورين أيوه وحليه هاي رأيت في الجاهلية قردة والقصة أي وحان أركي حتى حيوان كسي زينة ونعبهين وحان أركي جاهلية دي وحل كان رسولكو صابحين عليه الصلاة والسلام وحان أركي بولي عمر بن ميمون وحان أركي دانيرد ديك دانيرد بان أركي اجتمع عليها قردة دانيرد بدن إسقوي مادين قد زنت أذنيست دانيرد كقفها يقانا بيرها يدميجي والو قرنا ياي وحيوان كأو قردة بدن حقا وحكمي دي تنورش اللي وذاكت وحير هذي كم مقناته وما جيت أما كين أما مال أي حاجة كسر مرته مركه وجوه الرئيس بقى وحو الشيء وجوه الرئيس والسمية وأرسنية حبين كترنكو كأرسنية حقنو كلوريجيا مركا أدبو إلى عليها دان يرد بان أركيبو يري دان يرسجوي مادين فرجموها أو دقح أي كدليان دقح أي كدليان أيان أرك مكاس عليا كان سحابي جاء فرجمتها معهم أنا ولا رجمي بير مركان فاهمين إن دان يرك لو دومتي وأراعي بيرانيونا إلى النفط لقى كشرة وقرت سما حيث سنسا مسألة حتى حيوان كأكتود سيدا يكوتها بيت سنسا والزنيمة والزناد وعيب وأن أضحهم الدون كان وعيب يدلي آخرنا وعذاب وحقرنا يسن حديث البخاري مسلم سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه رسول كمركي لقوريسي أمل ديلميي واتو رسول كلها صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتياني هبين كي حليها لبما لك بائيهمي وإنهما ابتعثاني ويكحيين لبدي ملك وإنهما قال لي انطلق وحي يلاهدين صعو وإني انطلقت أنيقو نوان صعدي معهما أنيقو لتشره فأتينا على مثل تنور وحانو صعونبا وحان نمي تنار باني بالك موفضة اللي قدو بي رودي ده تنار دوشي باني سسو تاغني فإذا فيه لغط وأصوات بس التنار كقديهيسا وحاكات بحي بوق يعض يقيلو أيا كسعوت فاطلعنا فيه وقوران سنيو ساسانو إيكني فإذا فيه رجال ونساء عرات مثل وحا كبو حد حديثة رقي دمر قاقاون رقي دمر قاقاون بميشن كشكشرا وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم حق هوسي هلع يضب باكا سو كعيا markaas dabka iyo holacaasi say uga cararayaan isna uu dabada uga jiro bay afka ku soo dhawaanayaan tinaarka afkiisi bay ku soo dhawaanayaan فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا marka ay dabkaasi ku yimaado waa qaylinayaan عباد يقيلوا markaasaan فقلت ما هؤلاء وما حيكون قال فإنهم الزنات والزواني ورقي يا دمركي دنيا كلا زينيسان جري دمركي رقي زينيسان جري يا دمركي زينيسان جري واسدا حرام بين مريها isugu dhigteen عائشة markii aakhir rasuulku ka waramay iyo mowqifka ilaahay hortiis dadku waxay soo istaagi doonaan iyagoo kabala iyagoo maryala iyagoo aan gudnayn iyagoo caynkana
رسولك كل صلاة الله والسلام عليه عائشة مركب waxay rasuulka ilaahayow dadka inta tira leeg ee banaanka la isugu saaray qaaqaawan miyaanay rag iyo dumarku cawradoodu isu muuqanay عائشة arrinka waa ka adag yahay nabigu alayhi salaatu wasalaam waa عائشة waa runteed dareenka qof walba cabiri kara way maanta maxaad moodaa iyagoo dhar sita dadkii loo kala taaglaay taas waa baqaawanaan la sheegay oo arrinkeedu adag yahay dunidan maanta aynu joogno iyagoo raggiina marya xiran yahay dumarkiina marya xiran yahay baa haddana zinadii socotaa oo loo kala taaglaayahay oo la isku qarsanaya marka zinadu heerkaasaa shareecadu gaarsiisay maaciz radiyallahu xadiiska bukhaari waa wariyey maaciz radiyallahu tacaala canhu watuu nabiga majliska ugu yimid zanaytu fatahirnii waa zinaystay taahiri nabigu waa eegay sal alla alay wasalam wayxak irjic fastaghfiri illaaha watub ilayh war hooge war orodoo dib u noqo oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo alla u toobadkeen waa noqday dembigii uu galay ayaa haddana qalbigiisii gubaya mise waa kana haddana waa soo noqday ila nufuus bay ahaayeen ilaahay rumeeyey oo rabbi ku xiran oo aakhiro og oo dembigu ay galeen dareenkoodu iimaanka ku jira ayaa wax badan xanuujinaya oo shaytaanku qofka waa gefka iyo dembiga uu kuu soo jiidaya laakiin ina aladiina taqow idaa massahum taa'ifun min ashaytaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun marka waa in waad gefaysaa laakiin markiiba inaad isqabataa war maxaa kugu dhacay war balaayada ku qaaday waa maxay war seen noqotay war balaayaa kugu dhacday waa ku sidee war alla u soo noqo alla u toobadkeen caynkan waa inaad tidhaahdaa idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم marka hadii xuma dhaco waa in durtaba ilaahay loo soo noqdaa subhanahu wa ta'ala ninkii maaciz radiyallahu anhu waa soo noqday yaa rasuul allah tahirni wa mar labaad rasuulka ilaahayow idaahiri dambi baan galay iga nadiifi wayhaka irji' fastaghfir illah wa tub ilayh war hooge orodo noqo war ilaahay dambi dhaaf weydiiso oo toobadkeen orod waa noqday way ishayn way hadana wixii ka dhacay buu dareemayaa waa soo noqday tahirni ya rasuul allah su'aasha markay isweydiinta la waxay tahay waa maxay qoomamada iyo shalaytanka inta la eg oo la fadhiisan la'ay ee saxaabigan wada waa dareenka dambigan uu dareemayo inta uu la egyahay iyo toobadan ilaahay inuu u soo noqdo uu rabo توبة صادقة أبو روا الله إنه أصلا نقضاء نصوحة وإلهي وكتش على هذا سبحانه وتعالى مرصد حاد بأيمد طهرني يا رسول الله رسولك إلهي طاهري وادم بابي مرأة فراد بهدنا أيمد نبيك صلوات الله وسلام عليه مركي أفراد برسولكم مركي سؤال ويدي وحكيري سؤال شو رئيسي فيما أطهرك محنك ظاهرية بل وحنا أتكعبنا يسوع مربع الله ديجا ظاهري يكيس كان أتقشي محويه قال من الزنا زنا إيجا دعضي رسولك صلى الله عليه وسلم صحابة دي بالسؤال ودي وحيري أبيه جنون ورنين كان وحوالئة مياد كو أجيدين أنو ميرقبان كو أجاي وح حنون ميو كذا أو لسه درسي وكاسير هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بجنون وحوالي أن كان ما هيسو سؤال واد بودي وحيري أشرب خمرا طلب خمر بسوع بيو حوغا ميو دوخسيه أو محمية سكة نبا كعي رجي كميدا وأرصده إلا بارغو بحر قرمونه أوريوي وأرصده بل من خمري وسوع بي أرتيسي لقد دريمي وح خمري يبضابا نين قلي ما هو نين كاد نظيفته markaas nabiga su'aal saddexaad ku celiyo wuxuu ku yiri azanayta warmiyaad sinaysatay faqala na'am ha markaas rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam su'aal afraad weydii la'allaka qabalta war waxa dhici karta inaad dhunkatay baa dhici karta aw ghamasta ama inaad taataabatayoo aad tuujisay baa dhici karta aw nadarta ama inaad eegtayoo isha u jabisay baa dhici karta قال لا يا رسول الله ما يرسولك إلهي انت منا معها وكسي فوقته سؤال شناد بودي وحكيري فهل تدري ما الزنا
zinadu waxa ay tahay ma garanaysaa horta bal ii qeex zinadu waxay tahay bal ii sheeg nacam أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا حرام بان أقول سيدا ننكو حاسكي سحلاش أقول تقوكالي سؤال شو مكاسو عيري حبن كيغا ترنكا إيا حبن كيغا ترنكا أيا سيدا ودانتا عيل كله يقول أقول دعي يعني وقيحة يا وحو الربائن أرنتو أي كدع إنو عدايو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مركو انت الشيء ودوا قرشو ماشي قدام بيسيبوا قرطي أيا رسولك صلوات الله وسلامه عليه طهرني أوليه أيا رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم حدك وين لقوا فيها قد هالله قضى قد بقى الله قضي إلى محنكو إلى هذا مسكيهيسة أما هالكا سمها كي رسل ريحوغا بقى الله قري قضي هل الرجمي يا رسولك صلوات الله وسلامه عليه دقح لقوا الرجمي ولا الرجمي معس دقحي بقى لقوا بلابي شريعته waxay uga gol leedahay qofka guur xalaal soo mara iyo qofka aan soo guursanay zinaysta way kala duwan yihiin qofka zinaystay aan guur xalaal soo marin isagu waxa kan waa markii ugu horeysay waxba kama yaqaan sida awga shariicadu in boqol shaabug oo dhangadood lagu dhufto xabsina la dhigo ama la masaafuriyo ayaa shariicadu ay sugtay haddii ninku guur xalaal soo maro oo macaanka uu guurku leeyahay rasuulku ku sheegay shahru asal bisha hore ee guurku inay tahay bil uu rasuulku ku mathalay malabka oo kale macaankii xalaasha iyo guurka ee uu soo maray ee jirkiisa tin iyo cirib wada gaaray hadduu ka dambaysiiyey macaan kale oo xaaraan ah waa in xanuun looga dambaysiiyaa tin iyo cirib wada xanuujiya وين لو قدم بيسيا وانا آيات قرآن أي أهيد قراءة ذي لنسخي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهم البتة هيد قرآن أهيد أخرس كيدي ولا نسخ لكن حكم كيدي ويا لا ما أنت قلوا أي واحد ترى هذا مكوا علمانية ده ما دتك الدين تكسر شيء ده حير هذا مركي هالليان دتكو هدي وحده حذان وقعمها اللي وذا قوي هدي إلهي إدمايو أي زينيستان وقار شابوق للدعو يقول لكرباشو وقار رجح لجدله ومضوا ولا ضمين يا وحلاقة دقيقة ضد وذا بيشن واحد أختار جيفا واحد انتي واحد قام جوان يا وشقينا يلي جوابت له علني وحي تاي ضدك أردني مزونات با مية زينيستان ومريا الله واحد زينيستان ضدك أردني متوجه وهمايا مريا الله بوا واحد توجته دي مدق عن لا شو ولا جود عرّ لا باش dadka oo dhan ee xaafadaha iyo xaasaska soo wada maray miyay wada zinaystaan kuwa aan waligood guursan miyay wada zinaystaan waa maya waa midhiya laba way sida awgeed baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ninkii saxaabiga xanuunkii dhagaxii ku dhacay jirkiisa ayuu carragod ka soo booday dabeetana waa la baaciyay nin kale oo ka hor yimidna dhagaxii baa lagu dhuftay adigu ninkii nafti baa meeshii kaga baxday saxaabadu ويسويدين دعدة ماشى كدعدي يسيد وحود عين أيا صحابة إري بحنتو دي ويسير ويدين مد عنانا يا مد أمانة يا أيا هذا الكود مركا أحاديث تأد في رسو أيو نقنقنا يا قال وحي راذن هلك ماعز وأحاطت به خطيئته ماعز وادنتي وحي خلد يا هاي وقلينا وهليلين أو واكوبي قال وحي رادين توبد وما أنت توبد كان ماعز توبد لم يذبح ما بقى يشرته النبي صلى الله عليه وسلم وصوبحي مركاسو فالا يرو كوبا كبحيي ماعز بن مالك يرجمنتي للرجمي والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفروا لماعز بن مالك ابن مالك ماعز بن مالك إلهي دم بداف ويدي فقالوا غفر الله لماعز بن مالك مكاس يوحي دادين ماعز بن مالك الله دم بداف رسولكم مكاس وحيري
لقد تاب ماعز توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. منك ماعزة والله وحو توبت كان توبت حدي أمتنا إلهي أبور طيو أرلدقن توبت دي ساقف قفل وقو قيمين لها كفلنا لها يدبو النبي عليه الصلاة والسلام. توبت دي ساقفلنا لها أمتنا سيدا أمتنا صومالية دو كالي سيدا أمتنا كينية أو كالي أمتنا إلهي أبور طيو أما كبا بدن دي haddii loo qaybiyo qof walba waa ku filnaan lahayd. toobadda marka uu qofku toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo alle wuu kugu jeclaanayaa tuu kaa toobad aqbalayaa waxaadan filayn oo aad u qiimo badanna waa ku siinayaa. waa garanaysaan xadiidkii uu toobadda rasuulku mathalka yaab kale ka bixiyey nin sadcaala oo dhul bahgooya ah oo aan baadiya biyo lahayn oo geed la harsada lahayn nin socda oo neef geela wata awrkiisii sahaydii biyihii u saaran yihiin inuu soo maray oo dabeetana awrkii u saarnaa raashinkiisii biyihiisii wixii uu ka fakaday oo ka baxsaday intuu raadiyey ka quustay dabeetana geed meesha ku yaalla intuu iska yimi hoos seexday oo yidhi kollay socod iyo caga meel ku gaadhi maysidee geedkaas naftu ha kaaga baxda hoostiisa adigoo jiifa. waxoogaa ka bacdi markuu indhaha isku qabtay mise waa neefkii ka baxsadayoo dul taaganoo hoggaankiisii iyo xadhiggiisii uu laadlaado farxad daraaddeed intuu booday ayuu hoggaankii qabsaday. markaasuu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuka akhta'a min shiddati alfarax buu nebigu yidhi ilaahu adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaa baanahay. muxuu doonaya inuu dhaho ilaahu adna rabbigay baa tahay anna addoonkaagi waa kugu mahad haddaad ii soo celisay. yacnii farxaddii ka badatay awgeed ayaa erayadii ka soo baxayay xitaa ayuu maaragtay hadallo waaweyn oo khatara ku hadlay. toobadda ilaahay saas ugu farxaya markaad wax shay macsiyo ah ka toobad keentidna ogow wax ka fiican baa ilaahay kuugu bedelaya wax ka wanaagsan baa ilaahay kuugu bedelaya. rasuulku wuxuu yidhi weli saxaabigii buu kasii sheekaynaya laqad ra'aytuhu yatakhadkhadu fi anhaari aljanna wallee waxaan arkay isagoo webiyadii jannada sidaa ugu gadgadoomayaan arkay. jannada intii webiya ku taallay isagoo kolba mid kan caano ka cab kan biyo ka cab kan malab ka cab kolba mid isagoo u wareegaya ayaan arkay. riwaayad kale waxay tidhaa waladii nafsu muxammadin الله النبي محمد نفتيسو قعنتيس كوشرتان كدارتي إنه لا ينغمس في أنهار الجنة وحو دح مخورنا يا ودح دبالنا يا يكون دح ترى وبيد الجنة النبي يقول عليه الصلاة والسلام. وقيمها وطوبة كين كلية أو ذنوب تهدينه كطوبة كينه جنة ينهلين ناوي معنا إلى أنت طوبة دينا أقبله أي جنة إنسينية ماعز نق شديسي دنبغي او غلاي قلبيسا غبي اي ظاهري او لها وقت كوبان دبديد هيركاس الهي غارسي سبحانه وتعالى. الهي ادومكيسا عيد uga naxariis badan markuu toobad keeno ma jirto dambi kasta oo aad gasho gaalnimo ha noqoto ilaahay waa ka toobad aqbalaya subhanahu wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi. ilaahay ahadka adoomiisa ka toobad aqbalo way sida awgeed inta waynu dambaabayna وقفينا وخلدمينا قورينو دمانيننا ما أوجين هذا إمين كوحين تكن المغرب وحين ربنا إنه هدي الله إدمه عشيه تكن قوردو قف إن كم إذا هو بمتشرا يسوقون نول إنه علاء الشجارة يو تكني أنا قاعد الله الله ما هو يدين كأي مغليانا ما هو بتاع غيرده أنت سئين وشرته كبت آد قشنت هاي سون كيدو فرت هذه السول كسارية geeridu waa idin ka dhowday baa nabiga kaleey salaatu wasalaam. adoo socdaad dhiman kartaa adoo fadhiyaad dhiman kartaa adoo taagan baad dhiman kartaa adoo jiifaad dhiman kartaa. muhiimadu waxa weeye waa dhiman oo geeri waa lama huraan laakiin adigoo ilaahay ku xiriirsan oo wadadiisii ku toosan geeridu ha ku timaado ku talagalna dhimanaysid. wali waqtigan maanta la joogo waa aakhiru zaman mawtul fajr waa badan yahay geerida lama filaanka إلهي النبي وكم ينقل يشري
nebigu ilaahay ka magan geli jiray ilaahu mawtulfaja baan kaa magan geli oran jiray way badan tahay maanta sidaa awgeed baa dhimashadu badan tahay oo mawtulfaja u badan yahay qof walowba adigu bal waxaad isku daydaa inaad toosnaatid ilaahay iyo adiga xiriirka idiin dhexeeya bal hagaaji haddaad hagaajiso wallaahi haddaad hagaajiso adiga iyo ilaahay xiriirka idiin dhexeeya adiga iyo xaaskaaga xiriirka idiin dhexeeya waa fiicnaanaya adiga iyo caruurtaada xiriirka idiin dhexeeya wuu fiicnaanaya adiga iyo deriska adiga iyo waalidka adiga iyo qaraabada adiga iyo bulshada ku dhex noosha wuu fiicnaanaya waayo meel sara xarig kuugu xidhan yahay adag wuxuu oran jiray Fudayd ibn Ciyaad idaa casaytu allaha macsiya faacrifu dalika khuluqu ximaari ودابتي وزوجتي markaan ilaahay ku caasiyo markiiba waxaan ka gartaa dhaqanka xaaskayga dameerka aan raaco oo gaadiidka ii ah iyo cidda ii shaqaysay khaadimka ii ah islaantiyo igu hadal celinayso igu yara madax adag oo isku kaysoo taagaysaan arkaa dameerkii baariga ahaa ee gaadiidka ii ahaayo biqlaynayo aan ogolayn inaan gaadiidsado ayaan arkaa khaadimkiyo igu dhaga adag ayaan arkaa markaasaan noqdaayo ilaahay u hoydaa markaasaa ilaahay wixii ii hagaajiya sida awgeed ninka aynu ka sheekaynay Fudayd ibn Ciyaad nin wuxuu ahaa markii hore burcad ah oo khamriga caba oo xanuunka aynu ka sheekaynayna caawa ku shaqo leh oo dadku jidka ka mari waayeen oo haddii qorraxdu dhacdo deegaanka uu joogo wax socon jiray ma jiraan laga boqo oo dadka dhibay buu ahaa habeenkii dambe ayuu qof dumar oo aan wanaagsanayn buu la ballamay in xumaan ay dhex marto dabeetana goor dambe oo dadku kala seexday saqbarkii ah ayuu soo tegey isagoo gidaarkii iyo derbigii intuu qabsaday fuulay isle aad u dhacdid qoftii aad ballansanaydeen aqalkeeda ayuu wuxuu maqlay aqalka ku qabsan daaradiisa bannaanka ah nin tukanaya oo salaatuleyl u taagan muxuu akhrinayaa ninka salaatuleylka u taagan meesha suuratulxadiid aayad ku jirta ayuu akhrinayaa aayaddii markuu maqlay alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wamaa nazala calayhim min alxaq aayaadkaasuu maqlay gidaarkuu saa u haystaa weli kama dhicin balaa micnaheedu waa maxay miyaanay u dhowaanin dadka muslimiinta ee mu'miniinta iimaanka leh miyaan la gaarin wakhtigii qalbigoodu ilaahay u khushuuci lahaa oo ay isdaba qaban lahaayeen oo wixii macaasiya dunuuba ay ku jiraan faraha kala bixi lahaayeen lama gaarin miyaa wakhtigaa waa la gaaray ilaahayow waa ka soo noqon waa meeshuu ku toobad keenayba markuu xoogaa soo socday ayuu wuxuu arkay dad awr iyo wax wato oo taagan oo wada hadlaya show dadku isagay ka hadlayaan markaasuu wuxuu isiriyay ku arkine bal u fadhiiso way wada hadlayaan waxay leeyihiin war inadejiya war awrta inoo fura war ninkii inkaarta qabay ee Fudayd ahaa baa meeshan ku jira ma foga war waxba ina ka reebi maayo waa ina dhacaya waa ina laynaya war socon mayna ina dejiya iyo xoogaa aan soconno iyaga wada hadlaya waa maqlayaa isaga marka waa ninkaasaa looga baqay mogta markaasuu ilmeeyey muxuu noqday markii dambe kitaab tafsiir ah kitaab la sharxay oo xadiis ah haddaad saa u kala furtid qaala Fudayd ibnu Ciyaad unbad arkaysa caabidu alxaramayn baa loo bixiyey xaramkaasu muddo dhan fadhiyey caalim noqday diinta ilaahay bartay caabid uu noqday marka aayaadka qur-aankeena lagu akhrinayo macaahidda la dhiganayo jaamicaadka laga baxayo kutubta la dhegaysanayo muxaadaraadka la dhegaysanayo waa inay walaalayaal waxayna ka bedelaan waa in dhaqankeena wax ka bedelaan waa inay ilaahay inoo sii dhoweeyaan waa inaynu alla u toobad keennaa waa inaynu alle u noqonnaa ilaahay markuu ku arko inaad addoon diyaar ah tahay oo isaga ku xidhan oo toobad keenaya oo cabsanaya oo baqanaya markuu ku arko ilaahay waa ku tabantaabinaya waa ku toosinaya waa ku hagaajinaya markaasaa nebigu heer wuxuu sheegay qofka mu'minka ah ee toosnaa ee cibaadada
iyo khayrka ku toosnaa geeridiisu markay soo dhawaato malag baa ilaahay samada uga soo diraa malagaasi maxaa amar lagu siinayaa addoonkan waqtigiisii waa soo dhawaaday toosi marka haddii wax yar jireen xitaa isku dubarid baa la odhanaya isku dubarid saa markuu dhinto dadku maxay odhanayaan marka laga sheekaynayo ninkaas in dhoweydba sanawaadkan dambeba safal awal buu ku tukan jiray mid kale wuxuu leeyahay alla muxuu quraan akhrin jiray mid kale wuxuu leeyahay muxuu khayr ka shaqayn jiray muxuu sidan ahaa waa addoon la hagaajiyey oo laisku dubariday oo caynkan ah kii kale kharibnaana shaydaan baa lagu saliidaya isagoo waalan buu iska dhimanaya khariban oo bada kale iyo balaayo ku jiro dhimanaya marka waxaan u baahannahay inaynu ku noolaanno ku gabagabeynaya hadalkayga bayna alkhawfi waalrajaa noloshaada intaad caafimaad qabtid ee aad talinayso ee aad tabcanayso ee aad socoto ee xoog leedahay ee xanuunku haynin ee aad nooshahay waa inaad miisaan cabsi iyo raja ah dhexdooda waa inaad socotaa oo micnaheedu muxuu yahay adigoo ilaahay u tukanaya oo rajo ka qaba jannadiisa dembi dhaafkiisa maqfiradiisa adigoo soomaya adigoo sunnihii tukanaya adigoo zakadii bixinaya adigoo sadaqadii bixinaya adigoo wardinaya adigoo ducaysanaya adoo qaraabadii xiriirinaya adoo waalidkii u baarnimo samaynaya adoo wixii khayra ka shaqaynaya oo aad samaynaysa rajo ilaahay ka qabtay haddana cabsi waa inay kugu jirtaa oo maxay tahay cabsidu armaa ilaahay salaada kaa aqbali waaya armaa dembi kaa dhacay oo aadan ogeynoo alla agtii yaallaa jira armaa ilaahay ku cadaabaa armay khaatimadu kaa xumaataa armaa naar gashaa armaa baqdintaasi waa inay kugu jirtaa taasi maxay keenaysaa inaadan isu bogin oo aadan isla bixin oo aadan isu qaadan dadka inaad ugu cibaado badan tahay dadka ugu fiican tahay dadka ugu deeqsisan tahay ha isu qaadanin isdhaliil waa lagaa fiican yahay waa lagaa cibaado badan yahay ilaahay waa lagaaga dhow yahay waa lagaa toosan yahay addoon caasiyaa tahay khaladkaagaa badan naftaada u sheega oo isdhaliil taasi waxay keenaysaa toosnaantaadu inay hagaagto shaydaankuna albaaba kaa waaye laakiin haddaad isu bogto oo haddaad xoogaa safka hore un ku tukato salaadaha xoogaa aas tiraahdo ninkaa cibaado badanba kumaba soo hoyda magaalada oo ninkaa fiican ma jiro maalintaas waa kuu dhammaatay maalintaasaa gurigaa ba'ay adigana marka waxaan isu dardaarmaynaa inaynu ku noolaanno cabsi aan baqayno iyo camal falasho xagna ka camal falo xagna ka cabso xagna naftaada dhaliil oo u sheeg inaad tahay qof dhaliilan oo khaldan oo gaabis ah oo dadka muslimiinta ee kale kulli ay kaa fiican yihiin waxay keenaysaa walaalkaa inaad ixtiraamto inaad jeclaato inaad xurmayso qiimo kula yeesho ilaahay ku xidhnaato taasay keenaysaa ilaahay caabudid bay keenaysaa ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembiga waalidkeenna alla ha dhaafo dembiga muslimiinta oo dhan alla ha dhaafo waa dhimanaynaa ee khaatumada ilaahay khayr ha inugu gebagabeeyo intaynu joognana ilaahay isagaa wax ilaaliya hayna ilaaliyo diinta iyo camalka saalixa ah ilaahay hanaga ilaaliyo hanagu ilaaliyo ilaahay dad ay diintu dhab ka tahay oo qowlkooda iyo qalbigooda iswaafaqsan yahay allah haynaga dhigo dad diintooda duunyo ku raadiya ilaahayna kama dhigo dad diintooda janno iyo raalli ahaansho ilaahay ku raadiya allah haynaga dhigo muslimiinta wixii bukana allaha caafiyo wixii daymaysan daynka allaha ka bixiyo wixii kurbaysan kurbada allaha ka faydo tii muraadle muraadkooda wacan allaha siiyo intii dhimatayna allah u naxariisto intan noolna allah uga daba naxariisto maalinta taayadu noqoto ee qubuurta aan gelaynana ilaahay ha inoo naxariisto qubuurtana allah ha inoo nuuro tawxiidna allah ha inoogu khatimo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala fitanka adduunyada iyo mashaakilaadka jira ilaahay inuu naga ilaaliyo innagoo ilaahay uu raalli naga yahay allah inuu na oofsado dad walaalo oo muslimiina oo iimaanka iyo ehelnimada ku walaalo allah inaga dhigo xanuunka qabyaalada iyo qurunka allah inaga saaro iimaanka qalbigeenna ku jira allaha quweeyo macaasida ilaahay nafteenna ha ka dhowro diinta iyo khayrka allah ina jeclaysiiyo allahuma salli calaa muxamed wacala aali muxamed